بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الكتاب ونسان وقال الاستوديو كسلوات كان عادي هذا ما سنتين aad iyo aad aad umahadsantihiin. Horta aan waxaan kaga sheego maanta barnaamijka aan rabo inaan ka hadlo waxaa weeyaan OneXBet iyo aba badan oo la mid ah isaga ku nooc ah. Sida ogtihiin ba OneXBet waa ab qamaar weeyaan, ma fahanta. Mar adiga wax jabsanaya oo mar aad lacag helaya, marna waad ku weynaysaa ku qasaaraysaa. Marka waa qamaar inaad heli doontid iyo inaad ku faa'iidi doontid, inaad ku faa'iidi doontid iyo inaad ku weyn doontid kala ma taqaanid. sidaa daraadeed waxaa noqonayaa qamaarkuna waa xaaraam. Marka asxaabey ma fiicna, waxay leeyihiin meelo kale aan ku baxnaynaa, meelaha kale ma ogtahay ayaduba xaaraantu meel walba inay gasho ma ogtahay. Horta maal adigu aad heshay ama lacag aad heshay haddaad qamaar gelido ayadaa dambi kugu filan. Marka waxaan dhihi lahay waxyaabo xaaraam weeye iska dhaaf, meel kale kaa gelaya yaa xaalad ay ku soo laga yaabaa in ka hor istaagto ma fiicna. Marka waxaan dhihi lahay waxyaabaha xaaraanta noocaas oo kale bulshada aad ugu faafay la iska dhaafo, haddii kale waxaa dhici doonta mar caadi xalaal looga dhigto. Soo waxaad garateen maahan awalaa ganacsiga waxyaabo badan oo dhibaato ka jirtay. Marka dhalinyarada waxaan yaan caadi looga dhigin, waxaan xaaraam weeye ma fiicna. waa iska daynaa in raggan hore saas ku bilaabayaan, kabacdina waxaa imaanaysa in caadi loo qaato. qamaarku inuu wax fiican ahayn waa naloo sheegay, marba haddii wuxuu xaaraam ay noqotay xabad ma dhaamo. lacag aad qof ka xaday ama aad soo dhacday oo kale waxba ma dhaamo, kulley waa lagu aakhiro waa lagu haystaa. Marka waxaad ka faa'iidaysa waa xay waa waxba wax ay tahay male, qof dhacayo oo waxadayo oo kale ayaad noqonaysaa maadaama aad qamaar wuxuu yihiin oo wuxuu wax qamaar ay yihiin, ma fahant. mar adiga guuleysanaya marna waa laga guuleysanaya, waa qamaar. waxaa laga yaabaa dhowr jeer oo isku xigto inaad waxba weyda laga yaabaa, ma fahant. marka nooca weeyaan waa qamaar weeye, lama ogolo, wax fiican maaha. dhalinyarada waa kala talinaya, waxaan leeyahay war iska dhaafa, waana ku naseexanaya, waan idin sheegaya badankiina waa ogtiin inuu xaaraam yahay, idinku ogaadan ciyaartaan. marka waxaan dhihi lahay iska dhaafa, lacagtiina meel kale ku bixi kartaan. yaa bedel khayr qaba waxaa idina inaad sadaqa ku baxsataan, waa hubaal inaad bedel khayr badan aad helaydaan. aniguna ballan qaadin anigu ma aana ballan qaadin, subxaana wa tacaala ilaahay baa ballan qaaday. ilaahay baa ballan qaaday oo yiri waxaan ku bedelaynaa bedel ka khayr badan. marka hadalka ilaahay uu noo ballan qaadana ma aha wax dheeldheela, waa hubaal in la helayo. marka waxaan idin dhihi lahaa dhalinyaro waa muhiim weeyaan noloshanada. mar haddii xaaraan ay ku soo gasho xaalkaagu baari maaha, ducada xataa lagama aqbalo. qofka xaaraanta cuna ducadiisa lama aqbalo, xaalkiisu waa allow sahal weeyaan. waxyaabaha khatar badan weeye marba hadday xaaraam soo gasho oo meel walba kaa soo gasho. xaaraam luuka dad ku yeelato ma cuno iyo anigu shaah kala bixi maa, dhar kala bixi maa, meel walbood gelido maalka ay haysato soo xaaraan kuma aada bixin, waa isla mid weeyaan. marka dhinac looga baxsaa lama arko. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaas kusoo gabagabeynaya, aad iyo aad u mahadsantihiin. dhalinyaro iska jira waxyaabo badan oo waxaa jira nala ku gaaday.